munaasabad lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waa kan wariyaha Somali Channel Ibrahim Sheekh Hussein Sheekeye oo warkan ka soo diray magaalada Muqdisho munaasabadan oo ahayd mister Sara loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen shacabka degmada Yaaqshid ayaa waxa lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee iminka loo magacaabay gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab gudoomiyaha degmada Yaaqshid Muxdiin Xasan Jurus ayaa sheegay in shacabka degmada Yaaqshid iyo maamulkiisaba ay haatan u taagan yihiin sidii ay taageero ugu muujin lahaayeen gudoonka cusub ee gobolka Banaadir loo magacaabay isagoo sidoo kalena u mahadceliyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan maanta waxaan halkan joognaa xafladii aan lagu taageerayay gudoomiyaha cusub gobolka Banaadir lagu soo dhaweynayay looguna duceynayay maxaa yeelay xil hadda jiro in la soo magacaabo wuxuu u baahan duco marka waxaan leenahay Allah ku fududeeyo waxaan kaloo rabnaa inaan asigna amaano gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Tarsan oo shaqo badan ka soo qabtay gobolka Banaadir isaguna waa mahadsan yahay kulli generalkan waxaan ka sugaynaa si aan looga bartay wax qabad tayale wax qabad degdega wax qabad wanaagsan waana u rajeynaa waxaan rajeynaa sidii saaxiibkiisa Tarsan uu shaqeeyay in la eg oo lagu diray abni inuu ka shaqeeyo doonayaan rajeynaa maanta dadka shacabka Yaaqshid ee halkan hortiin tumar waxay u baahan soo baxaan ayaga saabulay waxay soo dargaroobeen oo yimideen taageer soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Xasan Maxamed Xasan Muungaab waxaan ka rajeynayaa dadka Yaaqshid in abniga wax badan laga qabto iyadoo la marayo wadooyinkii iyo horumarkii bilaawnay baa jiray laga aqoonqaday kaasoo u baahan in la taabageliyo waxaan ugu horeeyo wax ka soo la qabto abniga ay ugu horeeyo waxaan rajaynaynaa sida tuugadii iyo isbaarooyinkii wax loo qabtay ugu qabtay gudoomiyaha markuu ay jananka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada inuu in leeg ka qabado xagga abniga ee shabaab shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan nabad waxay u baahan yihiin abni waxay u baahan horumar marka waxaan leenahay ilaahay ka dhigo kii wax qabto waana soo dhaweynaa waana u duceynaa in ilaahay xilka loo dhiibay oo amaanada ilaahay la fududeeyo Ibrahim Sheekh Hussein Sheekeye Somali Channel Muqdisho